Badhasaabka Gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Erigavo ayaa ka hadlay dagaal maalinnimadii shalay ahaa ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Ceel Afweyn kaas oo u dhaxeeyay laba beelood oo walaalo ah oo wada degay degmada Ceel Afweyn waxaana Badhasaabku sheegay dhimashada 5 qof iyo 9 dhaawac ah waxaana Badhasaabku arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa sida tan maanta kulli warbaan naga sugayso war maxaa ka dhacay Sanaag baa la lahaa haddii la oranayo meeshaas meel roob ka daayay baa qolooyinka reermiyi isugu yimaadeen oo sahani dagaal baa ka dhacay iska horimaadka waxa ku geeriyooday 5 qof dhaawac 9 baa la igu soo sheegay wixii dhintay Allah u naxariisto waxa dhacawana ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo waxaan salaanay hortu naf ilaahay doonay inuu dilo cidina ma baasin karto inagu talaynu ku leenahay awood waxaan leenahay waa saaraynaa ciidanka u gurmaday ciidanka kala dhaxgalay meel goob kasta ka ciidan ayaa taagan waxaan uga digaynaa dadka inaan la arki karin cid urursan oo isu hubaynaysa inay dagaal qaado iyo weerar waxaan uga digaynaa gaadiidka inay dad meelaha isugu soo guraan waxay ciidamadu ku amran yihiin cid kasta oo loo arko inay dhaqdhaqaaq colaadeed wado ama af ama adin ku doonaba ha noqdee inay talaabada ku habboon ka qaataan waxaanu leenahay war waxaan isku abaabulaysan isku horgeynaysa waa inaan yaabihi abtigi inaan yeeyna abtigi inagama go'aan ka waantooba ilaahayna u noqda ilaahay ka yaaba arsi walaal ma noqdo adun bas ku aakhira seega iska daaya dhibaatada tiina dambe eega waxa isu tiineega meel kale tagi meysaan damba isku keen haysata shaydaan baa idinka dhex shaqaynaya boqol waro kala jaada leedinkan iyo halkan baa laga soo duulay halkan ma soo qolol habeen walba lagu dhahdaa war waxa soo dhan taysinaano cagta u dhigtaan bal u fariisataan arinta war dhibaatada ina haysata waa maxay qorayna is weydiisaan ayaa ku habboon maalin walba inaan ka dhimanaya nagama go'o haddaynu markaa ku sii wadno inuu sii kordhino way sii kordhaysaa xagga nabadda ha noo noqdo xagga ilaahay ha noo noqdo xagga islaamnimada ha noo noqdo xagga iimaanka ha noo noqdo anigu waxaan ku soo urinay hadalkayga dhibaato markay dhacdo kelmadda la inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ba marka masiiba dhacda la yiraahdaa si laakiin marka abaabul lama galo iska daaya dhaqdhaqaaqa wadaan kawaantooba ciidamadana wax kasto ay nagu qaadanayso inaan meesha nabad ka dhalino diyaar baynu nahay waajibkiina ka gutaa madax xaqameedku dawaa mas'uuliyadda koowaad ee dawladda ka horeysa iyaga ay haydeen waajibkooda gutaan oo ay ka hawl galaan oo dadka dhex maraan oo wanaaga u sheegaan waxa samoodaa qaarna inaad basaarayn qaarna iyaga laftooduba kamid yihiin mushkiladda lafteeda marka idinna intiina lumsana la soo hadiyaan leh intiina kalena war fadhiga ka kaco waajibkiina gudo dadkina wuxuu sheegay Jaabir Siciid Ducaale Jaabir Bulshaawi sahan TV Erigavo